بيئة waxaa imaan doonto runtii dhibka ay leedahay ayaan rabaa inaan kala hadlee biyadu taasiirka ay leedahay rabaa inaan idin sheego misaal baan idin tusinayaa Soomaaliya ka dhacay wiil yar oo Talyaaniga wiilka Talyaaniga aabayo hooyo kaliya ilma ka qaba diblomaasina weey aabihi waa Muqdisho weey waxa fadda Boondheer weey ma sheeko buga aniga wiilkii yani hortayda uga sheekay arintii wiilkii waxa dhacday markii odagu shaqada ka soo rawaxo hooyaduna ay ka soo rawaxdo waa laba qof oo family ay wiilkan banaanka u bixiyaan cidana ay wiilkaaba u joogaba bas wiilkii xaga waadaya marka ilmo Soomaali oo garangar ku ciyaaraya meesha jidka ah ayuu la ciyaaraa maalin walba ilaa ilmo kale ma haysteen ilmo garangarta la ciyaara garangarta la eriyayo kale ilmo ku daaway xooga kuwa kale to waaweyn ku soo biiray way la ciyaareen anugii intii aabiyo hooyadii ay hurdaayeen anugii waxay geeyeen dugsi quraan ay geeyeen ilmahan raacaya dugsi quraan la soo dhiganaya ambuulada la cunayo wax ka soo cunay markii ilmo laga ducaynayo waxa dhan markaas ay dhan kitaabka ha taabanin kala gaalata kitaabka taabanin gaalata quraanka ha taabanaya anug yarka biswa iska yar oo iska aamusay uma sheegay waxaas ay ku dhigayaan hada ilmuhu ku dhigayaan uma sheegay abiyo hooyadii ogow anigana saas oo kale tan loo dhaqmaya ogaada maalinka dambe iyagoo ciyaaraya yeedhana hana taaban haranaati hana taaban haran mataqaanin ma yaqaanin feere haran waxa Soomaaligu yiraahdaan eyga nijaaso weeye haduu ku taabto marka haranku waa eyga wixii la iska eriyo laga fogeeyo haran la yiraahdaa si ay u fahmaan madoona ciyalkee waxay ku yiraahdeen haran baati hana taabanin soo wada haran maxuu Talyaaniga ku yiri doob haran marka la yiri haran waxa weeye eyga aad la ciyaartaa marka najaasa kugu taala najaasadana ha nagu taaban najaasadaada adiguna anugii ilmahan raba inuu la ciyaaro dhagaxday dhigayna loo dhigdhigo raba waxaan hana taabanin haranaatee harankiina waa loo sheego waa eygan taabashadiisa la ciyaarayso guriga inta ku soo maalintii wuxuu yiri eyga ku bilaabo ul waa yaabeen odagii aabay waxa leeyahay eyga maxaa u dilaysaa waa fiican yahay waa faratelaaga waaye faratel way brotherka yirahdo waa faratelaaga maxaa u dilaysaa wuxuu haran weeyo faratela ma نوني فرتلو يري واو تربى هرم وايو واي ودي ايجا تربى هرم واي دهن تربى واي اد هرم ويا وسقو يحيي وايا بن ايجي اما غريغا هلاغا سارو يا امانغا هلاغا سارو نك waxay ku qasabtay ninkii inuu eeygi markii dambe cid kale oo Talyaani iska siiyo hay wiilkii yarka ilma ka qabay wiilkii wuxuu yiri eeyga ama aniga ama eeyga ayagoo yaaban meesha looga yimid ma oga barka waa saxdaan maalin kasta ayagu inay banaanka niman u joogaan yaryada ku deeyimo oga maalinka dambe yiraahdeen radiga buuriya qabataygeed uf buuriya maxaa la yiraahdaa uu yiri waxay buuriya waxa la yiraahdaa ilmaha la gudin baa la yiraahdaa adiga waa naga duwanta wasaqaata adiga ilmihi waa ilmo yaryare sarwaalkii yar inta iska wada fureen tusiyeen in lay gudan yihiin asagana aan gudnayn waa kaas alimarta ina qashin tahay waa arinta hadda aan sheegayo kala to gabdhaha la leeyahay waxay qarinaysaa oo kala soo markaysaa hadaba waxay qarinaysaa saan ogaw arinta hadaba waa the same yani procedure weeyaan oo lagu la dhaqmayo wuxuu yiri waa inaan ka takhaluso arintaas iyada wuxuu tagay canugii ilmihii waxay u geeyeen istaalkii Martiini la dhigi jiray geeyeen ilmihii say canugii u wadeen waa in la soo gudaa anigan waa yaabeen abiyo hooyadii kaxbay ku noqdeen canugu waa kaxayeen waa la soo guday halka canugu qaban Talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaanan yihiin waxa la yiri baqtiga cunta maalinkii dambe doofaarka cuntaha la yiri doofaarka cuntaha oo doofaarku maxaa dhibay doofaarka sida eygo kale tuu yahay turabbo najis yahay asagana gurigii ku noqday
wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofar Soomaali lagu maqalay gasac lagu leeyahay meeshii asaga ay sheekeynay gasacyadii oo dhan oo Talyaaniga ahaa oo doofarka ay boorka kula yimaadeen oo dhan kulli intuu arusho qubay wiilkiirka khamrigiina intuu qaatay oo dhaladii dhulka la dhacay markaasuu labadaba najis waay waxay dheen ilmahan waxa wax bar marka waynan ogaanaa si kasta intay yeelan u sheegi diiday saasoo kale taa marka doofarka looga tufay anu gaasgaalka ah ilmahanaga doofarka leeyahay maxaa dhacay waa cunta cun xaka cun is good maniela maniela Talyaani Soomaa maniela waa cuntada ugu fiican weeye cun sandwichkan manielada banini be banini banini maniela marka cuna la leeyahay ilmaha anaga saasa loogu daldalaa anagana sandwichka iyo maanta waxay ku jiraan oo kale kulligood loogu daldalaa because hadoo yira mar rabo maanta dawdiido boqolaa ku kacaydo waxa lagu leeyahay hel naga tagna lama ciyaari kartidi ilaa iyaga superiority kale yihiin ilmihii yarka ahaa waa fahamta Soomaa hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarka Talyaaniga aanay aabihi hooyadii u ogeyn aanan ilmahanaga u ogeyn waxa la cunsiinay sida loola hadlay sida loola dhaqmay aanan ogeyn okay canugii waa la soo guday doofarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyey maalinkii dambeeto ilmihii markay dugsigii tagaan waxa la quraanka taabanin maxaa dhacay gaalata la yiri maxaa noqonaya muslim noqolayno muslim soo noqda waay la ilaha illallah muhammad rasulullah de canugii la ilaha illallah muhammad rasulullah yiri yani ilmihii macallin u noqdeen canugii sheekh bay u noqdeen dugsigaana uu tagayo quraanka waqri wuxuu yiri ayadana aabay hooyaday ogeyn ma quraanka waxaan soo dhigtay ilaa juz amman soo bartay yiri soo xafiday yiri aabay hooyadayna xabad kama ogeyn buu yiri maalinkii dambe waxay uu yiri hey maqla maraba waxaan aad karsanaysan adinka cuntadayda waa ii gaar way aniga muslimaan aanu yarka ah adoogii hooyadii waa qaraami gaareen waa soo guureen magaalada waxay soo degeen Faransa ayay soo degeen aniga baash ugu sheekeynay wiilku waa Faransa way markay soo degeen wiilkii waxay islahayn waa idin soo noqon doona ma soo noqon masaajidkiisa ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii Soomaalida cid aan ahayn raaci maayo gabdhihii meesha ka shaqaynayay gabar kamid ah Soomaaliya af Soomaaliga wuxuu yaqaan sida anagu uga hadlayno kale habartii aabuuna Talyaaniga Soomaaliga ma yaqaaniin markay iskala weynaan markii hore to orgolyo waxa weeye asaga af Soomaaliga wuxuu bartay sidii ilmihii u baahleen ugu hadlay wuxuu yiri gabadhan Soomaalidan guursana gabadhu waa isku soo dhaceen bas waa guursan habartii adoogu sheegay wuxuu yiri ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo Soomaali aan guursaday waxa la daayirad naga tahay okay buu yiri bana adinka idinta Allah buu yiri waxa dartan ugu xukuma laakiin aniga gabadhan guursanay iyada muslima ma rabo ilmahayga inay meel muslimiin salka dhigaan ma doonayo meel muslimiin ilmahayga salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saasuu gabadhii ku guursaday aabii hooyada waxaan gabadhan Soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay ilmaha lagu aan aragno no buu yiri naagta in Allah hadashaan oo raali ka dhigtaan moogi ilmaha arki maydaan marka gaalad ilmaha way gaalaysiinaysa aniga arkay indhaygan ku arkay waxaad ogaataan marka canuga procedure la soo marsiiyay meesha uu ku dambeeyay in la ku dambaysiinay gabar iyo wiilba in sidaas oo kale la ku dambaysiinay